dhalinyarada waa tiir dhaxaadka bulsho kasta oo meel degan waa dhig iyo loolka saldhig kasta oo ay bulshada unkayso waana udub dhaxaadka bulshooyinka ilbaxa ah qarniga 21aad ee ambaqaadku yahay mid laga tixraaco waay aragnimada iyo waliba aqoonta kama hadlayo meerac cusub oo adduunka ku soo kordhay oo hadda la helay ee waa cirifka koonfureed ee qaaradda Afrika oo kumanaan Soomaali ah hoy iyo bare u ahayd 20kii sano ee la soo dhaafay waxaana laga yaabaa in badan oo idin ka mid ah ay dhagihiina ku soo duuleen warar dhiilo leh oo ku saabsan Soomaaliland la dhibaateeyay hase yeeshee wajiyada aad aragtaan ee joobanaatiga waxa ay meesha la fadhiyaan maskax iyo fakar sidii Soomaalida looga samata bixin lahaa nasiib darooyinka ay inta badan keeneen hab nololeedka xilli ay Soomaalida isu diyaarinayso in ay ka gudubto xilligii kala guurka iyo bulsho dulsaar ah doonaysana inay noqoto bulsho kamid ah bulshooyinka ku nool Koonfur Afrika oo leh markasyo aqoonsi xuquuq si la mid ah bulshooyinka sida Hindida oo kale ayaa kulamada ceenkan oo kale waxa isku abaabula dhalinyarada si looga arinsado wixii markaasi taagan ee la wada qabsan karo maanta kulanka waxa uu ku saabsan yahay u diyaar garowga bisha Ramadaan oo ay jiri doonaan howlo afurin ah qabanqaabada ciida iyo waliba howlo nadaafadeed waxayna dhalinyaradani oo la magac baxay ururka dhalinyarada ducaada Western Cape ku soo bandhigeen wax qabadkooda sanadkii la soo dhaafay iyo sida wax qabad la mid ah kii kale oo kale ay u soo bandhigaan Maxamed Xasan oo kamid ah ururkani oo hoostaga golaha dacwada ee Albayaan ayaa sharaxaya qaar kamid ah waxyaalaha ay qabteen xaafadda Bangi oo inta badan Soomaalida ganacsiga ku haystaan runtii barnaamijkaas madaxda waxaan jeclaystay inaan idinla sheegayo فيديو أو نص صار إن شاء الله هذول هذا برنامجكاس نوافذة هي ضرورة يرد على مجلس كالبيان وسكاشان هي صورة جري إنه صفي عن وقف صومه معنا رجيدون إن شاء الله إن برنامجها سيسيس عن دولان waxaa sidoo kale ay dhalinyaradu dhageysteen muxaadaro ku saabsanayd soonka oo uu jeediyay sheekh Soomaaliyeed waxaase ugu xiisaha badnaa markii ay dhalinyarada soo bandhigeen gabay ka hadlaya soonka waxaana gabaygaasi oo uu horay u curiyay Abwaan Cabdiqaadir Istansa goobta ka akhriyay Nuur Buqaari Ali Xasan bulshooyinka soon barbaaray tukada waa bil Ramadaan marka hore waxaan sheegay Ramadaanka ay ku saabsan yahay برنامجنا مدام أولاد كوسة بسيها رمضان قبل قال في رمضان كوسة بسيها واحد بدل على السعودية أدرس بسيني مركب بلشوا يصوم كبارة تكاد وابل رمضان برجال يو قرآن كان بديع برجال يو قرآن كان بدشايو بابا كافراني بعض الكيو حماها بيله شاي بليل واجاني مساجد بوحشاي ضديو فرتن وياني bishan waa bishu baqaray barakadeedii waa bishay baqriye soo degeen bariyo yaasiine habeen baa xad weyn baa jiray badiya soo jeedka boqolaal bilood iyo uluf bari wax sii dheere kabigaadu dhigay laakiin macna insha Allah wax yar wacdi waa hadii si fiican si xaliyada maadkii kulanka waxa shahaadooyin lagu abaalmariyay dad loo arkay in bulshada dhexdeeda waxtar ku leeyihiin waxaana kamid ahaa xubnaha ururka qaarkood gudoomiyaha urur ay leeyihiin ardayda jaamacadaha iyo xitaa saxafiyiinta oo ay kamid ahaayeen Maxamed Muuse Nuur iyo Cabdulaahi Qorshe waxaas ugu xiisaha badnaa markii shahaado la siiyay wiil yar oo lagu magacaabo Cabdulaahi kaasi oo hooyadiis u qaadayay shahaadada waa wiil baari ah oo fariid ah markii uu magaca hooyadii iyo magaciisa maqlay ayuu dadka ka soo dhaxkacay si uu shahaadada hooyadiis ugu qaado taasi oo ku mutaysatay shaqada hagar la'aaneed ee markaska Albayaan u qabato sida cunto karinta marka ay kulamada jiraan taasina waxa ay ahayd mid aan marqaati ka noqonay maadaama aan ka duurduuranay buskud iyo xalwad faraha la isku goostay Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir saxan saxo Somsad Cape Town